السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal muuqaal cusub muuqaalkaas oo ku saabsan xaasidka. ugu horeen xaasidka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sharta badan oo lees amray in ilaahay laga magan galo. ilaahay arintaas wuxuu ku sheegay quraanka markii uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku soo dejinayay suuradaha laga akhristo sharta shaydaanka iyo sixroolayaasha asaga oo ku daray sharta xaasidka wuxuuna ilaahay quraanka ku yiri ومن شر حاسد إذا حسد. inta aanan mowduuca u guda galin ugu horeen waxaan qeexeynaa ama cadeyneynaa waa kuma xaasid. qofka xaasid la yiraahdo waa qofkee. xaasidka waa mid ka rideeya mar walba nimcada qofka oo haysto qofka kale oo haysto inay ka baaba'do ama uu waayo. qofka xaasidka ah waa qof ka xanuunsanaya nimcada ilaahay uu u qeybiyay adoomadiisa wuxuuna jecel yahay wax kasta oo fiican inuu asiga haysto ama naftiisa ayuu wax kasta oo fiican la jecel yahay. xaasidku wuxuu u qeybsamaa saddex qeyb. ugu horeysa waa in qofka uu jecel yahay ama ay jeceshahay in nimcada ilaahay uu siiyo qofkan kale inay ka baaba'do si uu asaga oo u helo. wuxuuna arintaa u sameynayaa si walba oo yacni geed dheer iyo geed gaaban buu ugu koraa si qofkaas nimcadiisaas oo asaga u helo ama ay uga baaba'do. qaybta labaad oo xaasidka u qeybsamo waa qofka inuu jecel yahay nimcada qofka kaleeto inay ka baaba'do ama ay ka zuusho laakiin asiga inay usoo wareegto shardi ma ama ma jeclo. asiga inay usoo wareegto ma rabo, wuxuu rabaa qofkaas inay nimcada ka baaba'do. arintaas ayaana ah arin tii hore tii hadda koowaad mid ka sokeyso weeyaan xagga xumaanta. maxaa yeelay kii hore wuxuu rabaa qofka inay nimcada ka baaba'do asagana ay kusoo wareegto. kana wuxuu rabaa inay qofka nimcada ka baaba'do laakiin asiga inuu kusoo wareegto shardi ma inay ka baaba'do bisoo rabaa. qayb saddexaad waa inuu qofka jecel yahay qofkan kale nimcadiisa inay ka baaba'do laakiin uusan naftiisa la rabin. laakiin haddii uu helo lacal nimcadaas asaga uu iska rabaa yacni qof waxa waaye xiiseenaya kaliya oo aanan wax dana hadda ka lahayn xaasidnimo darteeda micnaha. haddii uu heli waayana waa qof jecel inay ka baaba'do qofkan kale waxa uu haysto si ay iskugu mid u ahaadaan. haddana waxaan ka hadlaynaa insha allah nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaasidnimada wuxuu ka yiri xadiis ayuu nabiga wuxuu ku yiri walaa taxaasadu ha isxasdinina ha isxaasidnimeynina xaasidnimada iska dhaafa ayuu yiri. waxyaabaha nabiga dadka uu ka reebahayay ayay kamid ahayd xaasidnimada inay iska dhaafaan. xadiis kaleeto nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri iyaakum walxasad waxaan idinkaga digahayaa xaasidnimada maxaa yeelay fa ina alxasad yaakulu lxasanaat kamaa taakulu nnaar alxadab. xaasidnimadu waxay cuntaa huyi qofka xasanaadkiisa qofka waxyaabaha wanaaga oo sameeyo ajarkii oo ka heli lahaa. xaasidnimadaas oo aaminsan yahay oo qalbiga ugu jirto ayaa ka baabi'inaysa waxyaabahaas ajarkii oo heli lahaa. sida dabku u baabi'iyo maaragtay waxyaabaha lagu shido oo qoryaha ah sida u baabi'iyo ayay xaasidnimadu u baabi'inaysaa acmaasha wanaagsan qofka ajarkii oo ka heli lahaa. marka labadaas xadiis ayaaba nooga filan xaasidnimada xumaanteeda. marka walaalayaal aan iska ilaalino xaasidnimada inshaa allahu tacaala. haddana waxaan soo qaadanaynaa oraahyaasha ama waxyaabaha laga yiri xaasidnimada iyo xaasidka ayaan wax ka tilmaameynaa insha allah. qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa qof lugooyo badan oo kaa daba shaqeynayo oo wixii aad sameysay kaa daba furfurayo. qofka xaasidka ah waa qof u muuqda inuu yahay qof wanaagsan oo mar walba garabkaaga joogo laakiin waa qof rabo inuu ogaado meelaha aad ka jilicsan tahay iyo sida markaas yacni qaabka oo ku xasdi lahaa. waa qof mar walba raadinayo. waxaa la yiri xaasidnimada waa dambigii ugu horeeyay oo qof bini aadam ah oo sameeyo. maxaa yeelay sida la ogyahay nebi aadan labadiisii wiil oo haabiil iyo qaabiil ahaayeen. qaabiil waxa uu haabiil ku dilay waxay ahayd waa xaasidnimo. oo haabiil ayaa wuxuu guursan rabay oo inuu guursado ahayd gabar qurxoon. qaabiil ayaa isla rabay gabadha xaasidnimo darteed ayuu marka wuxuu u sameeyey walaalkiis ayuu dilay. bal fiiri xaasidnimada ficilkaas xun ay gaarsiisay inuu dilo walaalkiis la dhashay ayay maaragtay ku sababtay weeyaan. marka waa arrin halis ah xaasidnimada. waxay ku gaarsiinaysaa waxyaabo xun inaad samaysid weeyaan. qofka aad xasdaysid waxaa sameynaysaa sidii aad maaragtay
nimcada oo haysto uga baabi'i lahayd sixir aad adeegsanaysaa dil ayaa adeegsanaysaa balaayo dhan qofka ayuu adeegsanaya qofka xaasidka ah wax kasta ayuu adeegsanaya marka waa arrin maaragtay aad iyo aad u xun weeyaan oo u liidato waxaa kaloo la yidhi xaasidnimadu waa waxyaabaha xunxun midda ugu xun weeyaan xaasidnimada wax kastoo xun ayay kasii xun tahay xaasidnimada maxaa yeelay qofka xaasidnimada sameynahayo wax uu ka helahayo oo faa'iida ma lahan weli meeshiisii oo taagnaana yani wax faa'iideeya ma lahan xaasidnimada ilaa qof waxa waaye wax rajeynayo meeshaas fadhiyo tusaale ahaan qofkan uu xasdayo ma sameynayo kasoo qaad qofka uu xasdayo wuxuu ku xasdayaa maal hanti oo leeyahay qofkan meeshaan fadhiya xaasidnimo la fadhiya hantidii ma tabcanayo ma sameysanayo wadooyinkii loo marayo ma u marayo ama qofkan wuxuu ku xasdaya kasoo qaad waa cilmi ama aqoontii ma baranayo markaas meesha la fadhiya ilaahayo aqoontiisa igu soo wareeji ayuu ku haya aqoonta ilaahay ka qaad aqoon ma soo wareegaysa aqoon wax la taaban karo maaha waa wax qofka qalbigiisa ku jiro oo aaminsan oo yaqaano oo bartay Soomaan wax guriga u tiirsan oo la soo xadi kara ama la soo wareegsan kara maaha Soomaan marka waa sidaas marka xaasid hor umar ma gaaro meeshiisa buu taagnaana mar walba mid kale waxa jirta qase aad iyo aad xaasidku ugu saabsan yani xaasid ku saabsan oo araw dadweynaha inaa la qaybsan insha Allah muuqaalka dambe ku sheegay insha Allah qisooyinkaas waxa yaabaha laga yiri waxa kamid ah xaasidnimada qofka xaasidka ah waa qofka markasta ka shaqeynayo inuu dab ka huriyo oo dhibaato ka dhax shido labada qof oo isqabto lamaanaha ah iyo labada qof oo saaxiibada oo isku wanaagsan iyo dariska isku fiican iyo walaalaha isjecel iyo waalidiinta iyo ciyaalkooda waalidkii iyo caruurtii ayuu ka dhex shaqeynaya xataa meel oo dhaafayo ma lahan iyo qof oo kasta oo wanaag ka dhaxeeyo ayuu inuu kala geeyo ka shaqeynaya qofka xaasidka ah badantaa bulshadeena waxyaabooyinkaas bulshadeena waxa qaribay dowlad la'aantii markay ku dhacday waxyaabaha dowlad la'aanta laga dhaxlay ay kamid tahay xaasidnimadaas in dadka si fogeeyaan si xaasidnimeeyaan kasoo qaada ganacsiga kala jirta la ogyahay qofaa meel dukaan ka furanayo wixii oo keeno dhan ayaa dukaan kale agtiisa laga furo la keenaya bal fiiri ma walba isku darsadaan oo shirka noqdaan ama wax kale loo baahan yahay oo keeno qofkan kale waa xaasidnimo waa qofkaas kale oo inuu soo u kicin waxiisaas isku mid u ahaada yani isku meel inay taagnaadaan waxa kale oo la yiri suurtagal ma aha inaad noqotid qof wanaagsan haddana xaasid ah suurtagal ma labadaas isma galaan xaasidnimo iyo wanaag inuu qofkan yahay qof wanaagsan iyo inuu xaasid yahay laba kaaf iyo kala dheeri ah weeyaan oo aad iyo aad u kala fog waxa kale oo la yiri waxa suurtagal ah ama waxa suurtagal ku ah inaad qof kasta raadi galisid ilaa qofka xaasidka ma ahane qofka xaasidka ah ma raadi gali kartid maxaa yeelay qofkan wuxuuba taagan yahay ama wuxuu aaminsan yahay in nimcadaas oo qofka ka xasdayo inay ka baabaado inay ka baabaado bisoo wuxuu ku qancaa wax kale ma wuxuu ku qancaa inay ka baabaado nimcadaas marka qof la qanci kara ma baahanba laakiin qof kasta waa la qanci karaa liir laakiin qof xaasid kuwa ma qanci kartid maxaa yeelay waxa ah haystid oo ku xasdayo inay ka baabaan bis ayuu ku qanci karaa yani wuxuu aaminsan yahay waxaas oo qofkaas oo haysto inay asoo ku fiican yihiin oo qofkaan loo sinistaahilin marka qofkaas oo xaasidka ah waxa looga adkaan karo waxa weeyaan la yiri waxa lagu sabrayaa dhagartiisa iyo xaasidnimadiisa lagu sabrayaa marka sabarkaas wuxuu noqonayaa mid dilahay asiga mid dilahay noqonaa sabarkaas dilkiisa iyo maaragtay baabiisa waxa weey waa in lagu sabraa sabarkaas hadaa u sabartid adaa dilayo adaa ka reenayo weey markaas wuxuu la mid noqonaa asiga naar dab oo kale dabga doo waayo wuxuu oo gubo asaas gubay ma ogtahay marka asigaas cunaa ninka hadii uu waayo wuxuu qofkii xasday adoo iska indha tiro hadaba careless ka noqotid qofkan aabadanen oo u sabartid waad ka reenaysaa weeye marka walaalayaal intaas muuqaalkeena ku soo gabangabeynayna insha Allah waana mid sii socon doono oo qisooyin ayaan soo wadnaa oo xaasidka ku saabsan insha Allah marka like ta iyo subscribe ta iyo laafin insha Allah muuqaalka la sii share gareeyo خير بان سوقناي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله